wasiiro ka tirsan maamul goboleedka Galmudug oo ay weheliyeen jaaliyada Galmudug ee bariga Afrika oo si wada jir shir jiraad ugu qabtay magaalada Nairobi ayaa si kulul u cambaareeyay shir maalmo ka hor Nairobi ay ku yeesheen 9 maamul goboleed oo ka soo jeeda gobolada Galgaduud iyo Mudug isla markaana la sheegay inay ka qayb galeen shirkaasi xubno ka socday maamulka Galmudug shirkan jaraa'id ayaa waxaa si weyn loogu soo horjeestay shirkaasi ka dhacay Nairobi iyadoona lagu sheegay in laga been abuuray maamul goboleedka Galmudug isla markaana aanay ka qayb galeen shirkaasi wax mas'uul ah oo ka socda maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug shirkii ka dhacay Nairobi oo ay yeesheen maamul goboleedyada ka soo jeeda Galgaduud iyo Mudug ayaa lagu sheegay in lagu mideynayo maamuladaasi waxaana ay sheegeen wasiiradii Galmudug ee shirkan jaraa'id qabtay inaanay diidanayn in midnimo la raadiyo balse ay diidan yihiin wadada loo marayo wakiilka bariga Afrika ee Galmudug Xasan Jabuuti ayaa ugu horeyn sharaxaya ujeedada shirkan jaraa'id ay u qabteen waxaan rabnaa inay idin cadeeyno kaliya breeskan aan qabanayno in uu yahay ka jawaabis shir ka dhacay Nairobi ee lagu magacaabay in ay ka qayb galeen Galmudug oo ay uga qayb galeen waliba xubno ahaan 9 maamul oo isku tagay jawaabteeda ayaa la bixin doonaa waxaana bixin doona wasiirada wasiirka maaliyadda Galmudug iyo wasiirka qorsheynta iskaashiga caalamiga Maxamed Cali Nuur oo ka hadlay shirkan jaraa'id ayaa si kulul uga jawaabay shirkii ka dhacay Nairobi iyagoona cadeeyay inaysan ka qayb galin wax mas'uul ah oo ka socday maamul goboleedka Galmudug shir ka dhacay halkan oo la yiri waxa isku tagay maamul goboleedyo 9 ah oo Galmudug baa ka qayb gashay waxayna ku heshiiyeen inay midoobaan oo ay dalka gudihiisa isku tagaan arrinka asaga ahi Galmudug shirkaas mana diidana midnimadaasi mid sujuub ku imaanaysa maaha waa mid shucuubtu ay ka talinayso dadka lagala tashanayo procedure loo maro leh nidaam loo maro leh dadka lagu tixgelinayo aragtidiisa ayagu ay dhisayaan maamul ay u dhan yihiin Galmudug ma hortaagna in madaxtinimada loo sinaado caasimada loo sinaado maamulka loo sinaado shirka dadkii habeen dhaweeyta qabtay ma waxaysan garanayn aqligooda uusan siinin at least haday doonayeen inay wax qabtaan Galmudug madaxweyne leedahay waa loo yaqaanaa madaxweyne ku xogeen bay leedahay waa nin macruuf waa loo yaqaan baarlamaan bay leedahay speaker of parliament bay leedahay waa la yaqaanaa wasiiray leedahay waxay dareemi waayeen in at least haday wanaag iyo horumar doonayaan in nin kamid ama ay tay wargeliyaan oo ay yiraahdaan war arrinkaas baan doonaynaaye kaalaya nala taageer waxa nala qabto may dheh waxaan ku soo gabagabeynayaa iyadoo la iga dambeeyay hadalka shirkii habeen dhaweeyta dhacay Galmudugna may ogeyn kamana qayb galin dawladda federaalka oo aan isku mowqif ka nahay cidna ugu may jirin marka shirka waxaan u qaadanayaa inuu ahaa shir ma dhahayo waa baadil sababta waxaan mabdi'in rumaysanahay in ciddii wax samayn karta ay samayso laakiin nidaamka ay u soo mareen ayaa ka khaldamay haday saxayaana Cabdikariin oo ah ninka la sheegay inuu Galmudug u matalayay shirkan la cambaaraynayo ee ka dhacay magaalada Nairobi maalmo ka hor oo isagana ku weheliyay wasiirada Galmudug shirka jaraa'id ayaa sheegay in lagu qiyaanay ka qaybgalka shirkaasi isla markaana ay ku maaldahaneed arrin siyaasadeed walaalayaal waxaan ahaa anuu oday kamid odayaasha waxaan soo wadnay hawl ayaa baxdan ku soo jirnay annaga odayaal oo samaha ka talinayna hawshii aan soo wadnay waxa soo dhaxgalay arrimo kale oo siyaasadeed oo aan iska jirin oo nala soo wasgaliyay ayadoo tabaaliyaal aan weyn iyo mar ayadoo tabaaliyaal aan soo hordhigay aan ku talagelin aan waxna ka weyn waxaan ku baraarugnay inay tahay hawshaas maarta hawl ragdan qaas kale yihiin marka dhammaan haddaan ahay horta dhammaan waxaan dhaali gelinayaa maamulka iyo odayaasha ayaan walajees baa bixin arrintaas maadaama nin oday ahay aan khaldamo wadadii maartay ka loo ayaa raali sidoo kale waxaa shirkan jaraa'id ka hadlay maamul dhoofo siyaad oo kamid ah jaaliyada Galmudug ee bariga Afrika iyo gudoomiyaha dhalinyarada Galmudug ee bariga Afrika bare iyagoona si kulul u cambaareeyay shirkaasi kuna tilmaamay inuu yahay mid lagu been abuurtay maamul goboleedka Galmudug Maxamed Cusmaan Xabiib Royal 24 TV Nairobi